لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى دمان انت مدش joogta iyo inta daawan doontaba waxaan idku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب runtii waan u mahad celinayaa cid kasta oo qayb ka ahayd agaasinka iyo qabanqaabada carwadan runtii kaalin ka qaadatay aynu isleenahay mujtamaceena iyo bulshadeena iyo dadkeena iyo inagaba faa'iido weyn bay runtii inoogu fadhidaa mowduucan jeclahay insha Allah inaan kelmado kooban anigu aad u soo ururin doona rubucna runtii aan ku soo koobi doono waa nabadda iyo muhiimadda uu islaamku uu siiyay waxa ka warhaysaan carwadani de waxay xambaarsan tahay nabadii waa nolol oo halkudhigeeda iyo fariinta ay bulshada u diraysaaba ay tahay waxaan ognahay marka koowaad nabaddu waxaan oran karnaa waa tiirarka ugu muhiimsan ee jiritaanka aadamaha iyo xayawaanka iyo xataa noolaha oo jamaadaadka ah waxaynu dhammaanteen isla qirsannahay doodina aanay ka jirin in meel aanay nabadi ka jirin qofka aadamuhu uu ka qaxayo uu ka tegayo qiimo kastoo wanaagsan oo noloshaasi u lahayd halkii ugu sarraysay haddii uu ka taagan yahay laakiin naftiisa uu baqaayo uu ka qaxaya wixii uu hayay uu ka cararaya xayawaanku sidoo kale meesha uu nabad ku haysanin uu ka hayaama oo uu iskaga taga isna waa ka qaxaya jamaadaadku dee nooluhuna jiri maayo meel aanay nololi ka jirin oo nabadi ka jirin isaguna jiri maayo diinteennu runtii muhiimadda ay siisay waxa ugu horraysa horta waaba diinul islaam oo waxaabay ka timi macnaha assalaam oo nabadgelyo ah waxaaba loogu magac daray oo magaceedu yahay waa salaam oo waa nabadgelyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala magacyadiisa waxaa ka mida in uu magacyadiisa ay ka mid yihiin assalaam oo ah magacneedu ay tahay nabadgelyo xaggaaga ayay ahaatay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markastoo lagu salliyayo maxaa la odhanayaa nabadgelyo iyo naxariis nabadgelyo iyo naxariisi korkaaga ha ahaato marka ilaahay magacyadiisii iyo tilmaamihiisii iyo sifooyinkiisii ay ka mid tahay nabadgelyo marka diinteennii dhammayd loogu magac daray nabadgelyo marka shayga ay isku aqoonsanayaan ee ku wada xidhiidhayaan bulshada muslimiintu marka koowaad waxaad odhanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyaad ku bilaabaysaa waxaan hayaa nabadgelyo idan diinteennuba waa diin ku salaysan oo ku dhisan nabadgelyo nebi ibraahim calayhi salaam markii uu haajaro keenay maka iyadoo ay ahayd dhul saxaro ah lamadega ah wixii koowaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baryey waxay ahayd ilaahayow rabbi ijcal haadaa baladan aaminan ilaahayow waxaad ka yeeshaa dhulkan dhul aamin ah oo nabadgelyo ah markaasaa wixii ka dambeeyey ee nolol iyo arsaaq iyo haddii allaba kuu roon yahay uu ilaahay weydiistay waxa u horreeya ilaahay weydiistay waa maxay waa nabadgelyo waxa ilaahay addoommada ugu manno sheegtay inuu siiyey ee ugu faanay ee yidhi war miyaanaanu taa idin siin qof markaad doonaysa inaad xasuusiso waxyaalo aad u qabatay ka ugu weyn baad ka soo bilaabaysaa ama ugu horraysiinaysaa ilaahay waxaa ugu manno sheegtay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan war miyaanay arkaynin inaannu dhulkan iyo xaramkan aanu ka yeelnay dhul aamin ah quraysh markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu manno sheeganayey waxa uu yidhi liilaafi quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع محاحقة وآمنهم من خوف لابا شيء بإلهي وما نشيكت قريش ورميان قاتشنا ليدين كإلال وإلهي سبحانه وتعالى دول برواقعة وبيره يزروع دي يمريه يتمارتي أي كسو قوع يعني إلهي آنو إذا كنا ولين إسلامر كان نبتقليا آنو إذا السينين إذا ولا ليا هلك وعينو كفهمينا ورنتي نوغا سو بخايسا إن دينتينو أي تهي دين نبتقليو ودين كمرن دينتينو عاطفة يلابلكا ودين قف كسو حق له حقي سسينيسا
ودين gacanta ka qabanaysa qof kasto daalima dulmiga uu sameeyo ودين ilaalinaysa qof kasto aadama xuquuqdiisi xuquuqul insaanki inaga si kala leeno fahamsiiyay oo deshaar kala leeno galiyay laakiin ودين ilaalinaysa qof kasta xaq uu leeyahay xaqiisa siinaysa ودين cadaaladeed ودين tixgelinaysa oo ahmiyad siinaysa in cilmigu uu faafo la dagaalamaysa jahliga iyo aqoon darrada ودين caalamku inuu nabadgeliye ahaado oo nabad ahaado muhiimadda koowaad ay u tahay islaamku waxa uu leeyahay wax loo yaqaan maqaasid ujeedooyin loo aasaasay maqaasida waxa kamida xifdhu nafsi nafta in la ilaaliyo bal iska daaya diinteena iyo diimihii ilaahay soo rogay ee inaga horeeyay min laga soo bilaabo nabiyullaahi nuux alayhi salaam ilaa lagu soo khatimo nabi muhammad dhammaan diimihii soo degayay shan shay bay ka midaysnaayeen shan shay bay ka midaysnaayeen shayga koowaad waxa uu ahaa in la ilaaliyo nafta oo see loo ilaalinayo qofku haddii aan naftiisa loo damaanad qaadin iyo amnigeeda iyo nabadgelyadeeda dee nolol jiri mayso waxa ka mid ah waxyaalaha diinteenu ku damaanad qaadayso kow in qofkii qof dila in loo dilo هدي قف دشو ولقو دليا إلهي محوليه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قف كي قف دلا أو لبا حق دركو دلا وحاو كمد يهينين دادكي أودن لاي يمجتمعي بلشدي أودن وحاوية لاي أودي بقيستي halka waxaynu ka fahmaynaa sida islaamku uu ilaaliyay bal iska daay qofku hadaanu qof dilin oo xataa uu dhaawaco waxa loo maxaa la yiri an-nafsu bil-nafs wal-aynu bil-ayn wal-anfu bil-anf qofkii qof dila waa loo dilaya qofkii qof il ka soo rida ishii uu ka soo riday baa loo ridaya ka gacan gooyo gacantii uu gooyay baa loo gooynaya ka dhag jara dhagtii uu jaray baa loo jaraya waxa soo dhan waxay runtii dhidibada u aasayaan in qofka loo damaanad qaado naftiisa inuu aamin uu noqoto waxa kamida bal iska daa in qof la dilay islaamkeenu waxa uu nahiyay oo la diiday in qofku uu hub ku fiiqo qori uu ku qabto baaskoolad mindi wax kasto qofka aadamaha wax yeelaya inuu qof muslima uu ku fiiqo wala nahiyay inuu qof muslima uu ku fiiqo wala nahiyay bal iska daa lacnad baa ku suganba إن تقف من دي آد وحوي كفيق أما آد وحوي قري ولا صوب حضا رعب يا أرجح يا عبسي آد جليسو لعنت باكو سجن وحاصرنا وحين فريان ودين تينو أيجا شيدا إن مجتمع يبول شدا يأمة الإسلام كو أيكون ولاته نبت جليه ينحرس وحيالها كينا ينبت جليه در هذا هدي أي تهيأ قفكو عقلي دورية oo ku doorinaya maandooriye oo ku doorinaya jahli oo ku doorinaya afkaar halis ah ila waxa aqliga doorinayo kaliya ma aha inuu qofku maandooriye uu isticmaalo bal iska daayo waxa aqligiisa doorin kara afkaar halis ah oo mayraysa oo ka kaxaynaysa afkaartii saliimka ahayd ee lagu yaqaanay oo qof muxuu keenayaa inuu dhiigaaga xalaashado oo yiraahdo dhiigaagu way banaayeen fikirhaan inuu aamino waxa soo dhan islaamku waa uu la dagaalamay waxa soo dhan islaamku waa uu la dagaalamay iyadoo ujeedadu ay tahay in loo damaanad qaado qofka iyo usrada iyo bulshada iyo qoyska islaamiga ah dhamaantoodba inay nabadgeliye ay ku noolaadaan rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam ahadiith badan waxa uu kaga hadlayaa in qofka muslimka ah al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wa nu'na nabadgeliyadi qofku waxa leeyahay soo muslimatiid ha qofka kale muslimka ayaa ka nabad galo carabkaaga iyo gacantaada labada ka adkow bal iska daayo qofkii gaalka ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ayaa la mamnuucay in la dhibaateeyo hada waa gaal oo diinteenaba waxa weeye shaqo kuma leh laakiin waxa uu heshiis iyo mucaahado uu kula dhex jira dadkii muslimiinta ahaa waxa loo damaanad qaaday nolol islaamku ma aha diin argagax iyo rucb ah waxa la jiday xataa marka duul gaalaha lagu duulayo inaan la iskaga bilaabin
إن دين الله صوبا ديو صدح مد كلا دورت كاليا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وركاليا أو إلهي نلا عابدون لم ينقض حقا أن لا نهي مد لم يدد يلنا إنسان تهدي أيديدان مركي وقورتها كوغوينين إيه واحد ترى هذا جيسية وين بحسان بروح في صحتها قال هذا لفتر كودية مجتمعي بوحل غير رجينية والله برا يا سماحة يونا قدينتين جيسية بحية تهدي أيديدان إنا إسلامتان وقبل كي بحسان وعشورتي بحسان مركها وحوي دي قودي لحلاشنا يا وحوي لودولية وحصلنا ولا ليال وحي نوع عطينا يندينتين إن مهمات قارسي سينا nabadgelyada iyo nabadu gaal iyo muslimba waa shay la isku waafaqsan yahay waa asaaska horumarka waa asaaska ummaduhu ay ku horumarayaan xadaaraduhu ay ku hana qaadayaan bini'aadamku uu ku tarmaayo tijaarada iyo ganacsigu ay ku kala soconayaan inteenaasi qof walba hadii uu cabsoonayo uu baqayo halkan muu imaadeen naftiisa nafsi ayuu oran lahaa idan noloshu ama nabadu iyo nabadgelyadu waxay saas u tahay guul kasto ummad iyo mujtamac iyo bulsho iyo dawladiba ay gaadho waxaan rajaynayaa waxay ka mid yihiin mawaadiicda aan shaki aanay ku jirin doodi aan la gelin nabadu muhiimad ma leedahay mise ma laha waxaan u maleynayaa gaal iyo muslim cid walba waa isku waafaqsan tahay inay muhiimad gaar ah ay leedahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa nabadeena iyo san ilaahay noo adkeeyo bulshadeena bulsho nabdoon oo xasiloon oo degan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka yeelo inta inaga dhiman ilaahay inoo dhameystiro kuwii ku hana qaadee ku horumaran Allah inaga yeelo aad iyo aad ba u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dantu somo super